وهرنتي وان كسلامي روحان دقيسان دونو موضوعا صوفو شهايا waxaan rabaa inaan waqti xaadirkan ka hadlo haddii ay baweyne uu ka raali noqdo mawduuc la magac baxay hanashada guusha run ahaantii waan ogahay guushu inaysan ahayn wax easy ah oo fudayd ah oo cid waliba ay gacanta ku dhigi karto laakiinse ay u baahan tahay dulqaad samir iyo joogteen dabaha guushuna ma ahan waddo saliim ah oo nin waliba ay isaga raaxaysato marka ku soo dhawaada mawduucayga يا hanashada guusha markii aad qorshaysato himilada aad rabto inaad ku xaqiijiso yoolkaaga waxaad u baahan tahay inaad ogaatid habka ama sidee ayaad ku xaqiijin karaysaa guusha haddaba waxaa jira waxyaabo laga doonayo qof kasta oo raba inuu guul gaaro waxaase ka mid ah waxyaabahaasi koow tala saarashada allah waxaynu ognahay dhammaanteenu inta la saarashada allah ay tahay mid kaliya ee ku fududaynayso waxyaabaha aad raboonaysid haddaba in aadan turaabow waa muhiim inaad xasuusnaatid allah tilaabo waliba oo aad qaadaysid markaas ayaad guul gaari karaysaa labo qorshe qoran oo jadwalaysan markii aad doonaysid inaad guul gaadho waxaa lama huraan ah inaad qorshe degsatid kadibna aad qoratid oo aad dhigatid meel aad ka arki karayso ama ka gaari karayso qorshahaagii si aan u ilaabin una soo xasuusatid mar waliba oo firfircooni dheeri ay kuu gasho baaritaan laga sameeyey dalka Maraykanka ee jaamacadda Harvard sanadkii 1970 ayaa wuxuu ahaa sidaan fasal ay ku jireen 100 arday ayaa waxaa la weydiiyey su'aala imise ninkan ka mid ah ayaa leh hadaf qoran ama yool waxaa fartii taagtay 13 arday oo kaliya kuwii farta taagtay ayaa su'aal labaad la weydiiyey oo ah imise leh ulajeed ama hadaf qoran waxaan isna fartii taagtay 3 arday oo kaliya sanad kadib ayaa ardaydii dib loo baaray natiijadii soo baxdana waxay noqotay 3 arday oo lahayd hadaf ka qoran inay noqdeen kuwii ugu sabka dheeraa mustaqbalka wanaagsan gaarayna nolol wanaagsan noloshoodana ka yeelay guulo waaweyn oo wax ku ool ah oo aan la gaari karin halka ardaydii kalena ayna ahaayeen kuwa xaalkoodu bariga dhaxays ka ahaa haddaba tani waxay ku cadaynaysaa in qorshaha qorani iyo waqtigaada oo aad maaraysataa inay ka mid tahay waxyaabaha aad ku guul gaari karaysid saddex go'aan qaadasho haddii aadan garanaynin habka loo go'aan qaato isla markaana go'aankaagu uusan ahayn mid laga fiirsaday way adkaynaysaa inaad xaqiijiso hadafkaaga ama yoolkaaga ku dejisan afar ficil iyo howlgal waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u howlgashaa oo aadan oran beri ama beri dambe ayaa waxaasi qaban doonaa shan joogtayntu waa qayb muhiim ah la'aanteedna ay adag tahay inaad gaarto guul haddaba waa inaad leedahay joogtayn ay dulqaad ku dheehan tahay lix ku samirka caqabadaha kaa hor imaan karaya haddii aad rabto inaad guul gaarto waxaan isweydiin lahayn inay caqabadi kaa hor imaan karto noocay doontaba ha noqotee taasoona adiga lagaa doonayo inaad leedahay ku samirkeeda maadaama hore loo yidhi eefidhib ay ka dambaysaa bal haddaynu soo qaadano fashilka maadaama fashilku ka mid yahay caqabadaha guusha fashilku waxaynu oran karaynaa waa jid ka mida jidka guusha lafteeda loo maro waayo qof aan wax qaldin wax maba saxo dadka fashilmana waxaynu u kala qaadi karaynaa laba qaybood oo kala qaybta koowaadii waa qayb wax isku dayda kadibna fashilanta mar labo kuwaasoo niyajaba oo wixii aanan dib ugu laabanin taasina looma baahno haddaba durbaha quusanin laga yaabaa inay guushu ku dambaysee halka qaybta labaadina ay yihiin kuwa iyaguna sidoo kale fashilma balse kuwaasi waa kuwa aanan quusanin oo hore u socda iyagoona cashir ka baranaya wixii soo gaaray
waana midda guusha lagu gaaro. markii aad fashilanto waxaad isweydiinaysaa su'aalahan haddii aad tahay qof doonaya inuu ka miro dhaliyo hadafkiisa. 1. waa maxay sababta keentay inaad fashilanto? 2. ma qorshahaagii ayaa ah mid ka halaabay oo ma waxaad u baahan tahay qorshe kale? 3. ma jidka aad maraysa ayaa ah midaan kugu habbooneen oo ma waxaad u baahan tahay jid kaloo aad madid? 2. 4. ma khibradda iyo macluumaadka ayaa ah kuwo aan kugu filnayn oo ma waxaad barabtaa inaad kororsato? su'aalahaas oo aad isweydiisaa kadibna aad u heshaa jawaab waxay kaa caawin karaysaa inaad ka soo gabshato guuldarradaadii. wariga gabagabadiisa walaalayaal ma sahlano sida aad guul ku gaari lahayd. waxay u baahan tahay dulqaad, samir joogteen iyo sidoo kale in Allah subxaanahu wa tacaala aad tala saaratid. halkaas waxaan ku soo afmeerayaa mawduuceygii ka hadlayay hanashada guusha. waa anigoo ah Faadima Cabdiraxmaan Xuseen Faadimo Fiyoore oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.